soo dhawaada dhammaan asxaabta maanta halkan waxaynu kaga hadli doonaa cryptocurrency dadku ama intaynu soo noolaynba kolba meel baa la soo marayay oo ay lacagtu soo maraysay marba silver wax lagu kala iibsan jiray marba gold wax lagu kala iibsan jiray goldkii iyo silverkii iyo maaragtay berihii wax lagu kala iibsan jiray markay cuslaadeen ayaa waxa la soo saaray lacagtan warqadda ah waxay fududeysay inay fududahay oo aad lacag badan qaadan karto oo imka haddaad 10,000 oo gold aad maaragtay aad sidato dee kaariyoon baad kusoo qaadaysaa moogtii waliba gold coinskii yarara ay tahay keligaa soo qaadan kari maysid marka lacagtu waxyaabo badan bay sahashay haddana warqaddii waynu kasoo gudubnay oo banking system baynu soo galno wixii digital buu noqdo wadigaa saadka diraya waxa haddaba problemkeedu uu noqday waxaasoo dhan lacagahaasoo dhan waxa controlaya ama ka dambeeya oo decisionkeeda sameynaya waa governments ama wadanaa la lacagahan marka dollarka USA baa leh eurada waxa laga isticmaalaa wadamo badan oo Europe poundka waa British poundkii qaar kale way jiraan marka governments kan baa waxay doonaan ku sameeya ama haddii governmentka ay wax ka soo gaaraan ama ku yimaado dhaqaalahooda burbur waxay saameynaysaa dadkii kale ee lacagta isticmaalayay marka cryptocurrency waxyaabaha ay faa'iidada ku leedahay waxa weeyaan imika eradan joognana ay tahay in aad maaragtay aad ugu dhaganugulaato waxa weeyaan waa badankoodu waa decentralized imika maanta waxaynu ka hadli doonaa coinka ugu weyn ee cryptocurrency-ga ee la yiraahdo Bitcoin waa decentralized cid decision-ka u samaysaa ma jirto cid maanta kaa xidhi kartaa ma jirto cid ay go'aankeeda gaadhaysa oo ka mas'uuliin ma jirto marka waxay kaa caawinaysaa inaad lacagtaada anytime meesha doonto aad dhigan karto adigu aad haysan karto qof kale aad u diri karto iyadoo aanay cidi ku eegayn oo ku lahayn waxa ma samayn kartid marka Bitcoin waxay value-geeda ka keentaa scarcity wax la yiraahdo scarcity waxa weeyaan waxa jira only 21 million Bitcoin oo kaliya wax kale lama soo saari karo 21 milyan waxna kuma kordhi karaan waxna kama naaqusmi karaan intaas un bay ahaanaysaa Bitcoin weligeed marka lacagaha waxa value-ga u sameeya haddaad eegto lacagtu haddii ay yar tahay ama scarcity-geedu uu badan yahay scarcity-gu waa yaraanta waxaan la soo saarayo oo portable tahay oo ay durable tahay iyo dhowr kale qodob baa lacagta lagu sheegi jiray marka Bitcoin waa durable waa scarce oo 21 milyan baa jira waxa weeyaan waa portable oo meesha doontaada la tagay waaladkaaga kugu jiraysa oo maanta haddaad isku dhacdaan dawladda gebigaagaba asad laga freesinaya ma jirto waaladkaaga baad haysataa meesha dunida tagtaad kala baxaysa marka Bitcoin waxay gaadhay maalmihii la soo dhaafay ilaa maanta ay taagan tahay imikada aan eego price-keedu xagu marayo wuxuu marayaa $95,000 ayuu marayaa imikada aan idila hadlayo iyo sanaati waliba dheer uu fluctuate gareynayaa laakiin intaasoo maraya oo marka daawanayso video waxa laga yaabaa inuu ka hoos maro ama uu ka sarreeyo marka wuxuu ku dhow yahay $100,000 marka waxa weeyaan all time high price-kii bay soo gaadhay Bitcoin iyo cryptocurrency sideeda guud ahaanba waa inaad ogaato waa future-ka investment-ka ee imika soo socda waxa sheekooyinka caanka ee laga sheekeeyay waxa kamid ah nin 2012-kii bay ahayd baan malay wallahi way ka dambeysay 2017-kii bay ahayd baan malaynayaa nin biisa ku iibsaday 2 Bitcoin imika hadduu 2 Bitcoin haysan lahaa dee intaasoo nus blood buu dhisi lahaa uu taagi lahaa anyway markaan ka imaado intaa Bitcoin waxa weeyaan waxa ay experts-ka cryptada yiraahdaan digital gold goldku waad aragteen oo waa limited inta dunida taala waa la soo saari karaa in limited marka sababtaasuu value-giisu aad ugu batay oo ilaa imika aanad u arag goldkiyo de meelaha lagu tuurayo leeyahay arbu inaga batay inaga mu badan scarcity-ga ayay ka wadaagaan goldka iyo Bitcoin-ku haddaan meel kale idinka tuso waxa jira wax la yiraahdo market cap oo lagu qiimeeyo
qiimaha uu leeyahay ama company ama asset oo wax de investment aad ku samayn kartaa ama business wuxuu leeyahay qiimo waxa lagu qiimeeyaa market cap wax la yiraahdo marka market capkeedu bitcoin maalmihii u dambeeyay wuxuu dhaafay shirkadda Tesla oo 1.1 trillion maraysa 1.023 maraysa Meta oo Facebook oo 1.3 trillion maraysa waxa jira Saudi Aramco company-gan gas ee Saudiga ka shaqeeya ayaa isaguna maraya 1.8 trillion oo ay ka sareysaa Bitcoin waxay maraysaa market capkeedu 1.806 trillion intaasoo company-yo waaweyn oo garanaysa maanta way ka qiimo sareysaa marka anigu waxaan maanta idinkula talin lahaa inaad research-keeda gashaan oo aad maaragtay cryptocurrency-ga barataan wax ka barataan investment-keeda aad gashaan oo aad lacagta bangiyada kuu fadhida aad ku invest garaysato cryptocurrency-ga mar laybana aad iska ilaaliso scam badan oo cryptada ku xeeran cryptada markay wixii uu noqdo decentralized anonymousna waxa badanaya dadka bad intentions leh ama waxyaabo aan fiicnayn doonaya ama degdeg ku taajirka doonaya marka marka cilmigaaga dhisto cryptocurrency-ga wax badan ka barato waxa ku fududaanaya inaad aragto wuxuu qofkaasi u jeedo marka adigoo aan wax ka baran oo aan research-kaaga gelin cryptocurrency isku gelin hana invest garaysanin waa inaad marka koobaad horta research-kaaga samaysaa oo aad cilmigaaga kordhisaa xagga cryptocurrency-ga marka aad gashaa maaragtay aad investment-keeda iyo lacag ka samaynteeda iyo waxa aad gashaa insha Allah halkan waxaad kala socon doontaa casharo ku saabsan cryptocurrency-ga iyo technology-ga guud ahaanba marka page-ka ku xidhnow like iyo follow-na sii la socod wanaagsan